الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا مقعد نجيب حسين صمالة أنا كابتن gobolka awdal waxaan halkan dhaliil weyn u jeedinayaa wasaaradda isboortiga ee gobolkan awdal oo hor istaagi doonta oo yacni damacsan inay hor istaagto safar aan ku tagino Djibouti insha Allah taala halkan waxaan yacni isku geynay in aan u cadeyno taageero weyn aan u hayno tababaraha Samaroon abidna insha Allah taala aan u hayn doono wasaaradda isboortiga sida la sheegayo safarkii ilaa imiga isuduhu uu wada sida uu noo sheegay shalay uu ku cadeeyay saxaabada u qabtay oo waa tagi doontaan marka sababta kale ku diidantii nagi maxay tahay wasaaradda isboortiga dabcan waxaan ku diidanahay wax qabad la'aantooda ta ka horeysa way Samaroon wuxuu dhisay base wanaagsan oo uu dhisay dhalinyarta gobolka awdal ciyaaro qurux badan buu sameeyay yacni horumar qurux badan buu ka soo sameeyay gobolka haddaan su'aashaada kaaga jawaabo oo ah yacni maxaa ma garanaysaa Cabdiwahaab uu ogol yahay in safarka la bilaabo Samaroon isagu waa ninkii u xarka xidhay in uu safarka Djibouti hirgeliyo mar walbana jeclaa in uu ma garanaysaa si qurux badan loo tago maxaa ka hor istaagay waa la garanayaa cid ka hor istaagtay wasiir buu tagay cid walba wax la qabanayso gobolka awdal oo buu kaashanayay cid uu dhaliilay cid yacni uu culay saarayo ma jirin xilku waa meerta leeydi marka imigana waxa lagu bedaloon Samaroon ninkii ku xigay marka ma waxa diidantiin inanka ku xigan ku ahaa Samaroon marka horeba ma diidanin laakiinse nin si qurux badan wax u wada oo maamulkiisu fiican yahay oo yacni bayskiisu wanaagsan wax qabadkiisu aan yacni meel looga leexdaan lahayn sababta loo bedelayay waa maxay sidoo khilaafkiina ku dhamaan kara wasaaradda horta meesha ka joogsato cid Samaroon adeegsanaysa ma jirto maskaxdiisu ku socda markaas uu khilaafku ku dhamaanaya wuxuu ku dhamaanaya wasaaradda wasaaradda oo mar walba isgarab taagta dhalinyaradu waxay jecel yihiin iyo tababaraha qaaliga ee Samaroon oo la garab istaago oo aan lahayn leexleexad ee si xaq oo xalaal oo wada hawsha nagi waxaad sheegtay ku-xigeenka ma kuma kalsoonidin ayaa leedin oo uu ka jiray anagu waan ku kalsoonahay laakiinse isagaan kaga sii kalsooni badannahay waa hadal cad